اللي بيسنك الله وقواني هلا باسك الله ناري halkan waa magaalada Afmadow oo kamid ah deegaanada Waamo ee sida aadka looga ciyaaro kala duwan oo kamid ah hidaha iyo dhaqanka Soomaalida iyo sidoo kale ciyaaro u gaar ah deegaanada Waamo waa ciyaaro xiiso leh ciyaarahan waxa kamid ah ciyaarta diisowga oo sida aad arkaysaan ciyaarayaan rag ay ka muuqato khibrad ay ciyaartan u leeyihiin waa ciyaar xiiso iyo xamaasad leh mararka qaar ragga ciyaartan ciyaaraya way bururaan oo way miyir beelaan taasoo ka dhigan in qofku uu gaaray meeshii ugu dambeysay ee xamaasadda ciyaartan ay leedahay qaar ka mid ah haddii ay helaan mindiyo ayay jirkooda ku jeexjeexaan waxaa kale oo ciyaaraha halkan lagu ciyaaro kamid ah ciyaarta saarka oo iyaduna leh xamaasad gooniya dadka deegaankan waxaa kale oo ay ciyaaraan ciyaarta waalada oo fadhi ay raggu ku ciyaaraan wayna adag tahay inaad fahanto qaabka loo kala badiyo ciyaartan balse mid ka mid ah dadka ciyaartan muddada badan ku soo jiray ayaa inoo sharaxaya صف واحد صف حق كيمانه صف انت كيمانه labada saf markay isku dhacaan labada gacmood mid ka isku la baxaan ninka baxaa helay looda leh toobal aan ku dhahdana bugcadaas ay aade waa la geelin ka geelaha helay hadana saasay kala baxsan yihiin waa isku khaldaamay ma loo inoo dheeli ma asgaran kar dhinaca kale haweenka deegaanada Waamo waxa ay yaqaanaan oo ay ciyaaraan ciyaaro kala duwan oo astaan u ah deegaanada Waamo qaar ka mid ah haweenka deegaanka ayaa halkan ku soo bandhigaya ciyaaro kala duwan iyo sidoo kale suugaan ka mid ah hidaha iyo dhaqanka ay caanka ku yihiin deegaanada Waamo ilaa cadowgeena la hajabiyo ilaa caradeena waa nabade ilaa calankan waa ka taagan ilaa cawadeena waa saa'id kawrur ahaan wax badan baan u qabanaa bulshada xagga caafimaadka baraarujinta deegaanka inkastoo macnaha hadda aan haynin macnaha inkastoo haynin haweenka meesha ay nagu dhalahaan MCH wanaagsan oo toosan aanan haynin guul weyn baan gaarnay media baan leenahay oo maanta wararkeena aan ku gudbin karno iyo wax alla waxaan u baahannahay oo ujeedadeena ah magaalada madaxda Kismaayo waxaan ka codsanaynaa gabdhaha wasiirada qamar deeq inay dib noo soo eegto oo hal mar ay gabdhaha Afmadow joogaan ama ururka hooyooyinka ay ma arag ay soo xusto ay man soo dhigay samaan arkin deegaanada Waamo ayaa leh hidda iyo dhaqan fog oo leh taariikh dheer oo soo jireen ah Maxamed Xasan